الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي هبون داوديال دلهانتين meel kasta adduunyada dacaladeeda ka joogtaan ku soo dhawaada xalqad kale oo ka mid barnaamijka imtixaanaha ee qalin kaasi oo alaaba aan ku qorfayno buugaagta isla markaasina aan kula kulano qoraayada. barnaamijkani waxaanu diiradda ku saari doonaa dhigana la magac baxay dhaqaalihii Jamhuuriyadda Soomaaliyeed ee intii u dhaxaysay 1960 ilaa 1991. waxa barnaamijkani igu martay qoraaga alifay buugaasi waa ustaad maxamed oo ku magac dheer sidoo kale Khadar محمد وقراءة بوجا كلا ودورة سيدو كلنا وبرسر وحكا ديجا قار كمية جامعة هذا الجارهانا كلية الرقالة وجهرين كسودو برنامج كقلين يسي بي تي في. أدباد سنتها خضر أديك تي في جواني مع النقايا. وضحي أستاذين تعينان موضوع السي جود جيلين بل وجهرين رقالة ومحي هل كيس وجود الدولة ده. ما سنتها رنتي رقالة حكمي دي هاي علوم تمرك لقاها ليو علومta bulshada ugu muhiimsan runtii waayo waynu ognahay maanta dunidu marka dhinaca siyaasadda laga hadlo salaan shacabku markay ama xukuumad dooranayaan ama hogaamiye dooranayaan dhaqaale wuxuu ku jira waxyaabaha ugu muhiimsan laga eego ayuu ku jira wadamada waxyaabaha ku kala nool fiican yihiin oo dhaqaale la isbarbardhiga marka la eegayo marka dhaqaaluhu waa mawduuc aad u weyn inta badan wuxuu diiradda saaraa wax soo saarka wadanka wax soo saarka hadhow salahan sidee loo qaybsaday distribution ka waxa la dhamaa dadka sidee loo gaarsiiyay iyo yani nacay badan kala duwan baa laga heli karaa laakiin dhaqaaluhu waa mawduuc aad u muhiim ah maxaan dhahdaa runtii muhiimad badan u leh dawladaha dunida ka jira iyo dadyooga dunida ku nool dhamaantoodba watahay aad baad maasan tahay haddii aynu kusii soconno qaybaha barnaamijka ugu horeyn maxaad ku dooratay inaad dhiganahani la magac baxay dhaqaalihii Jamhuuriyadda Soomaaliyeed gaar ahaan ka hadlay waqtiyadii u dhaxeeyay 1960 ilaa 1991 aad ku dooratay waad maasan tahay horta mawduucan in badan baan runtii ku soo dhex jiray muddo ilaa 6 sano abaan mawduucan baaristiisa iyo akhriskiisa ku jiray waxaan isleeyahay uu ku galiyay xiisaha ugu badan wuxuu ahaa buugaan akhriyay ilaa 6 sano 7 sano kahor laakiin marka buuga laga yimaado runtii Soomaalidu inta badan 30 sano waa 30 la yiraahdo waa 30 sano ugu muhiimsan taariikhda Soomaalida oo ay Soomaalidu aragtay dawlad shaqaynaysa oo effective ah dhalilaha doonta hay'adaha buuga laftiisana oo qaar sheegay salahan marka mushkilada dhacday waxay ahayd taariikhda inta badan Jamhuuriyadda Soomaaliyeed ee burburtay waa laga hadlaa siyaasadda waa laga hadlaa militariga waa laga hadlaa waxyaabo badan baa laga hadlaa laakiin inta badan dhinaca dhaqaalaha lagama eego marka inaan horta qaybta bixiyo maxaan dhahday qayb ay ahayd sidoo kalena buugani sidaas inkastoo uu yahay taariikh umadeed oo taariikh umadeed maxaan dhahday uu dhitaynayo haddana waxa muhiim ah in la ogaado in uu qoran yahay qaab akademiga ama qaab cilmi ah marka ujeedooyinka ugu weyn ee qoray waxa kamid ahaa inuu ardayda dhaqaalaha barta tixraac noqdo inay helaan tixraac afkooda ku qoran oo maxaan dhahday ay ku fahmi karaan salaan wax iyaga la xiriira inaga mushkiladda imika haysta dhaqaalaha wadanka lagu barto waxa ka maqan aqoonta la dhigto iyo waaqaca istiidan oo waxa la dhigtaa dhaqaale salaanama dunida horumartay ama Mareykanka ka waramaynta badan marka dadka dhaqaalaha dhigtaa aqoonta waxa u arkaanba waxa noloshooda si toos ah loo xiriirin ama waxaan la taaban karin oo abstract ah oo aan maxaan dhahday si toos ah loo taaban karin marka in ay arkaan salahan dhaqaalahoodii oo si cilmi wax looga qoray isla markaana ay ku tiirsanaan karaan oo tixraac noqon karta waxay anfacaysaa in fahamkooda kordhiso dhaqaalaha yani mawduucana dhiganayaan inay xiisana geliso marka laga yimaado buuga runtii xataa cidii u baahaneed salahan dadka dhaqaalaha darsa ama barta buuga saddex cutub kamidi waxay hore ugu soo baxeen qaab academic articles ay ugu soo baxeen marka uu helaya qofkii u baahday inuu raadiyo reference-kana buuga ku qoran yihiin marka qofkii u baahda wuxuu heli karaa xataa iyagoo afkii wax lagu dhiganayo Ingiriisiga ku qoran oo qaab yani journal academic ku soo baxay oo qaabkii maxaan dhahday jaamacada lagu dhiganay oo reference fiican noqon kara ardayda salahan ay helayaan laakiin si guud buuguna maxaan dhahday ee 6 cutub ka kooban yahayba runtii waxay u qoran yihiin qaab aad u anfacaysa ardayda dhaqaalaha barata marka mawduuca kale isna kamid in la helo wax afkii ku qoran iyo in la helo wax waaqi la xiriira marka afka laftiisa hadaan ku yar noqdo Soomaaliga muddo dhaweyd 20 sano ka hor wax la oran jiray af Soomaaligu dhimanaya wuxuu ku jira afafka dhimanaya ee la oran jiray salahan laakiin bariyahan dambe waxaad moodaa inay soo baxeen jeel cusub oo maxaan dhahday afkii noolay ama buugaag macna leh ku soo turjumaan ama buugaag macna leh ku qoraan marka waxa bilaabantay in af Soomaaliga cilmi lagu qori karo in la tijaabiyo waxaan isleeyahay fiilkan dhaqaalaha buugan waa buugii u horeeyay ama labaad
arrintaa bal isku dayay tusaale ahaan in afkii Soomaaliga cilmi lagu qori karo maadaama saan sheegay buugu qaab cilmi u qoran yahay ama u yaalo ayaa iyaduna kamid ah marka afka xoojintiisa iyo korintiisa iyo in afka wax cilmi oo macna lagu qoro oo nuxura ayaa iyaduna kamid ah waxyaabaha runtii ugu dhiirigeliyay inaan buugan qoro waa tahay sanadaha uu ka warramay buugani koob iyo soddon sano intii ugu badnayd jamhuuriyadda Soomaaliyeed waxa ka tinaysay dawladda kacaanka dadka intooda badan wixii burburkii ka dambeeyay waxay ku celceliyeen in jamhuuriyaddu xilligaasi kacaanku joogay ay dhaqaale ahaan horumartay markaad dhooxdo buuguna waxa uu sidaa fariintaasi aad moodeen lidda ku tahay bal halka mas'uul tahay kartaa si wacan ma santay horta niyo mushkiladii jirta waxa weeyaan dadkeena inta badan wax ma baara wax ma akhriyaan marka waxa dhacday in war baa jira propaganda intuu baxo dadka iska gaadha oo sida loo bedelanay adag tahay taas waa qodob arrinta labaad ee dhacday waxa weeyaan maadaama 1990 wixii ka dambeeyay dadku ay mushkilada badan arkeen oo burbur iyo dagaal iyo mushkilada ay arkeen iyo dawlad la'aan salahan khaasatan Soomaaliya oo kala dhinaca koonfurta waxa inta badan Soomaalida waxa jeceshahay in wixii wanaagsanaa hore soo maray dib u xusuusto tira shalay bay dhaantay iyo maalmo wacnaaba in soo maray iyo waxaas tusaalaha taa lafteeduna way keentaa dadku inay yiraahdaan yani dawlad baan soo martay xilli baan barwaaqan soo marnay tusaalahan garan laakiin waxyaabo cajiibka waxa kamid ah daraasadan waxay ogaatay oo soo baxday in aanay Soomaalidu 30 sano dawladdu jirtay aanay soo marin wax lagu sheegi karo barisamaad khaasatan waliba dhinaca dhaqaalaha in lagu sheegi karo sababtuna hadda eegto kulli cadayntu buugay ku jirtaa laakiin dhowr meelood baa laga eegi karaa salaam waxa laga eegi karaa wadan marka la eegayo tusaalahan wadankaasi qaninimadiisu ama hayntiisu ama hodantinimadiisu halkay gaarsiisan tahay waxyaabaha laga waxa kamid ah dakhliga qofka ku soo haaga dhaqaalaha waxaan la dhabar capita income dakhligaas oo kale Soomaaliya 30 sanaba ama jamhuuriyaddu waxay kaga jirtaa halka hooseysa dunida marka waxa la isla qirsan yahay inay ahayd dalku ahaa mid kamid ah dawladaha ugu faqrisan dunida ka arinta faqriga oo dhinac fiican oo laga yeegi karo maxaan dhahdaa lagu qiimeyn karo wadanka tusaalahan arinta kale lagu qiimeyn karo waxa weeyaan dawladuhu inta badan marka la qiimeeyo wadankan waxa uu qabsaday tusaalahan waxa ugu muhiimsan ee uu ka feyn karaa waa wuxuu cuno iyo raashinka uu cuno wuxuu u baahan yahay tusaalahan jamhuuriyaddu marnaba may gaadhin isku filaansho cunto isku filaansho kala dhaqaale iska daa arintaasna waxa waliba aad ula yaabaysaa yani sida ugu tiirsanayd cuntada la soo dejiyo raashinka la soo dejiyo waaba sidan maanta una yahay waliba iyada waxa u dheeraad waxa la yiraahdaa food aid in marka ay musiibo dhacdo ama mushkilada dhacaan oo kala ama dawladaha qaar ay raashin deeqa u keeni jireen salahan oo si official bilateral yani dawladda uga imanaya marka arinta lafteeduna waa arrin kale oo runtii muujin karta ama cadayn noqon karta in aanu maxaan dhahdaa wadanku barisamaad ku jirin waxa laga yeegi karaa kale dhaqaalaha wadanku 30 sano marna cagiisa isku taagin oo mar walba wuxuu aad uga tiirsanaa shay khaasatan deynta shisheeye iyo deeqda shisheeye gargaarka ayuu dhaqaalaha wadanku ku socday marka inahaas laga eegi karaa runtii in aanu wadanku barisamaad soo marin horumar xilliye la sameeyay way jireen xilliga kacaanka aad sheegto kala tusaalahan 5 sano hore kacaanka ilaa 20 ayuu dhaqaalaha wadanku xawaare ku dhaqaaqo la yiraahdo horumarka ugu fiican ay sameeyay wixii la qabtay ama la gaarin runtii way ku jirtaa xogtiisa buuga laakiin marka laga yimaado 5 sano stateanadiina wadanka dhaqaalihiisa hoos buu socday 60nadii markii uu maxaan dhahday wadanku ahaayeen dimuqraadiga mushkilada badan ayuu runtii la daala dhacayo dhaqaale oo dal iska faqiiro ayuu ahaa marka xaqiiqada hadii la soo koobo waxa weey dalku 30 sano Soomaalidu wax barisamaad leeyahay ma soo marin dhaqaalaha dadku sheegaan ay leeyahay ama maalmo wacan baa la soo maray ama golden age baa la soo maray ama wax la mid ah runtii arrin cadayn loo hayo maaha oo jirta maadiyad waxaynu isla garanay in koob iyo soddon sano intii ugu badnayd ay dalka ka tinaysay dawladda kacaanku sidoo kale falsafadii ama aragtidii ay wadatay dhaqaale wuxuu ahaa hanti wadaag buu ahaa kacaanku aragtidaasi maxay noo keenay maxaase dabada ka riixay in Soomaalidu qaadato horta nidaamka hanti wadaagu intii kacaanku joogay oo dhan ma shaqaynin wuxuu shaqaynayay 10 sano kamid ah ayuu shaqaynayay nidaamka hanti wadaagu dawladda kacaanku waxay ku dhawaaqday in qaadatay markay sanad joogtay 1970 xiriirka maxaan dhahday midowga Soviet wuxuu go'ay dagaalkii Ethiopia la galay 77 meelahaas go'ay 80kii wixii ka dambeeyayna Soomaaliya waxa uu janjeerstay dhinaca galbeedka oo IMF ta iyo Mareykanka iyo mucaawino iyo u doonteen gargaar marka
caadiyan waxa literature-ka qoran wuxuu isku waafaqsan yahay in 10 sano 70 ilaa 80 uu shaqeynay nidaamka hanti wadaagu ujeedooyinka loo qaatay runtii waa lagu kala aragti duwan yahay dhowr doodood baa jira literature-ka qoran ama yani wixii hore la qoray yaala qodobka koobaad dadka qaar waxay ku doodaan ahna tawgeer xoog badan in maadaama runtii jamhuuriyadda Soomaaliyeed waxa wada sameeyay markaa Somaliland iyo Soomaaliya isku biiray laakiin ujeedadu waxa idin 5 Soomaaliyeed la gaadho oo saddexdii kala la doono marka waxay istuseen qolada askartu ee wadanka qabsatay in ay xoog ku soo celiyaan dhulka maqan khaasatan Kenya iyo Ethiopia dhulka ka maqan xoog ku soo celiyaan marka midowga Soviet wuxuu ahaa dawladda kaliya ama quwadda kaliya ee ciidanka militariga awoodda militariga doonayaan Soomaalidu u dhisi kara ama u diyaarsan inuu dhiso ay ahayd marka dadka qaar waxay leeyihiin arrinta ah in ciidan adag la dhiso dadna dhulkii maqnaa la soo celiyo ayaa loo qaatay hanti wadaaga si loogu dhawaado midowga Soviet iyo loogala helo mucaawino ciidan u dhiso aragti kale oo la oran karo waa lagu yar kala aragti duway waxay qabtaa in 69kii afkambi wadanka dhacay waxa la dhahdaa afkambi aan dhig ku taadan oo ay askartu la wareegeen markii madaxweynihii maxamed la dilay laakiin waxa jira qolyo badan oo dadkan hore yani daraasadaha u sameeyay oo wax u qoray oo ku dooday in inqilaabku ahaa mid la qorsheeyay oo lagu talagalay muddo laga soo shaqeynay isla markaana uu gacan weyn ku lahaa midowga Soviet oo midowga Soviet ka shaqeeyay maadaama xukuumaddii markaa joogtay waliba cigaale xukunka laga tuuray loo arkay inay pro western tahay oo dhinaca galbeedka u janjeedo waxa la isku dayay ama maxaan dhahday la aaminsan yahay dad badan ay qoreen in waxa wax in badan laga soo shaqeeyay oo qolada midowga Soviet ay inqilaabka fududaysay marka in iyaga dhinacooga loo janjeerso xiriirka Mareykan loo jaro waxaan jeeray galbeed oo xiriirka loo jaro oo xaggan galbeedka bariga loo janjeersado oo midowga Soviet la qaato waxaan jeedaa hanti wadaag nidaamka hanti wadaaga la qaato oo midowga Soviet laga dhawaado waxay abaal celin hadii yani maxaan dhahday fududaysay afkambiga in abaalkii loo celiyo ay yahay laakiin xukuumaddu maxay sheegtay يعني تلسك أسكرتي جري مركي قاتين محي كسبيين يبو حي كسبيين وحي هو جامياش أفريقيا بشيء كتيرين أو أفريقيا دولة بدنا وكبيرة مركي حرية قاتين هنتي وذاك قاتين صوت اللغة قاتين وحي توت هنتي وذاك والنظام لجو جاري كره هرمتك دقة وايد دولة ده رجال بيت كان نظام كان هنتي قاسك هيستا وكويد إنكم يسنيم كحرية جنسية نظام كأي مرة نبقى سنة ay ku qaateen iyo halkan ku soo gaaro marka hadii la doonayo maxaan dhahday isbedel iyo horumar degdeg ah waa in nidaamkan wadaaga la qaato oo si ku dawladdu dhaqaalaha iyadu gacanta ku dhigto ay iyadu dhaqaalaha dhaqaajiso dabeetana si degdeg loo gaaro marka taliska askartu waxa iyagu ku sameeyeen oo yiraahdaan waxaan u qaadanay si loo gaaro isbedel bulsho social transformation waxa la dhahdo in loo gaaro in horumar loo gaaro in sinaan iyo cadaalad loo gaaro oo ah aragtihii Marxiya ee maxaan dhahday in dadku in classless society la bulsho aan qaltabaqada lahayn siman in la helo tusaalahan horumar waxyaabahaas ka mid ah waxyaabaha iyagu ay ku sababayeen laakiin hadaynu soo koobno dhowrka arrimood ba ujeedooyinka lagu soo koobi karaa loo qaatay nidaamkan wadaaga وطهي أنا واحد كاجي تحرعيا واحد شيء إن بدي هنتي وداك واي كومنيت دلك ندام كايس كجري أنا كلامنا بدي أشياء إن دلك نقاليس وحوارك ونقاعي أي بدي أسوق كمتها ما أورن كرا ندام كاسي هنتي وداك هاي نقالحان هل كي يقول لك سيدو سماي دكارسي ماي أنا قرأت هذا لماها واي واحد يعني سيد بوكنا هذا قلت لك دونتان نظام كانت وداك وحبابي مركي تنبه ayaa ka badan wuxuu marka hore taray oo siyaasadahan maxaan dhahday socialist development strategy la oran jiray lagu la qaatay 70-nadii si dalka horumar lagu gaarsiiyo wadanka markii dambe dhaqaalihiisa khalkhal bay geliyeen markii dambe ee 80-nadii nidaamku hantigoosiga wadanku u jeesadayna waxa la isku dayay in la sameeyo market reform oo suuqa dib loo saxo nidaamka dhaqaale dib loo saxo laakiin waxa ka suuragali waayeen maxaan dhahday siyaasadihii hanti wadaaga ilaa dadka qaar ay ku doodayaan bay imkan baa jira buug qoray oo dadka aad ka runtii maxaan dhahday inuu ku tiirsanaa xogtooda waxaaba isagu ku u aaneynaya in siyaasadaha hanti wadaagu
ay burburka qayb ka ahaayeen ninka la yidhaha Jamiil Cabdalla Mubaarak oo Soomaali ahaa ayaa qoray buug la yidhaha From Bad Policy to Chaos in Somalia, How an Economy Fell Apart. buugga wax kaga hadlayaa wuxuu isku xidhayaa from bad policy siyaasadahan xun u sheegaya waxa weeyaan waa siyaasadaha hanti wadaaga garanaysa to chaos burbur iyo khalkhal wadankii geliyay oo ay maxaan dhahday baabiyeen marka bilowgii hore hanti wadaagu qayb ka ahayn dhaqaale waxa wara ku dhaqaaqo sidoo kale waxa qayb ka ahaa oo inoo odhan karnaa askartooda doonaysa inay wax qabato mid kale waxa la yiraahdaa sanadahaasi mid kale waxa la yiraahdaa sanadahaasi waa sanadihii ay askartu xukunka dib uga fadhiisatay aqoon-yahanka loo dhiibay oo talisku markuu qabsaday markii hore isagu talada toos gacanta loogu soo gelin askartu dib u fadhiistaan dadka aqoon-yahanka ba talada u dhiibeen taasna waa ka qayb la yiraahdaa dadkoo waxoogaa firfircoonaayo nidaamkii hore musuqmaasuqa iyo dadkii maxaan dhahday nidaamka civilka aadka musuqmaasuqa iyo waxaas loogu aaneyn jiray ka يعني كدالي ودونيين هرمر لقارو وحيابا بقى جري لكن واقع قيب يعني سنا كريدت كقيب وقادنا يا إن هنتو ذاكو بقالها بلوغ اسمه دامو واي هنتو ذاك محوسالي إن الدولة هو كان كوقبة القالة مركا حواري اللي يقولوا عاقي وطن كيورد إنه هالمر يسبدل دق مر للسماية متكوبا والدولة هو كامل نسو تحسوا كل في مويه يعني لكن لما أوران كرو ولا مهدي خاصة ما كنت عواقب كذا شيء سلامك الله وطيب استعداد بدل ما أصنت هاي bal nooca nidaamka hanti wadaaga Soomaalida qaatay muxuu ahaa saameeysan nooc ma abu ayuu dalka ku keenay inkastoo ka dhawaajisay haddana adiga si faahfaahinay okay dawladaha Afrika san sheegay dawlado badan oo Afrika ayaa xilliyada hanti wadaaga qaatay dawladahaas saddex nooc bay ahaayeen qolo aan isleeyahay qolada ugu caansan marka Afrika la dirsiyo hanti wadaageedu waa qolada qaatay wax la yiraahdo African Socialism-ka marka waxa la oran jiray African Socialist States iyagu waxay ahaayeen dawlado intay nidaamkii hanti wadaaga soo qaateen waaqicooga ku saleeyay marka niman mufakiriin oo hogaamiyaala ayaa hogaamin jiray xilliyada waxa kamid ah tusaale Nkrumah oo Ghana maxaan dhahday madaxweyne ka ahaa Julius Nyerere oo ka ahaa Tanzania ama Tanganyika xilliga ka ahaa madaxweyne ayaa kamid ahaa qolyahaas oo qolyahaadka loo ma jirto iyaga laftoodu model kala duwan ay qaateen oo isku mid ahayn tusaale Ghana iyo Tanzania سالان سكمل ما هي لبضة موديل قاتل لكن واحد لبضة بكسرنا يعني إنه أفريكان سوشياليزم هاي قاتل بكسرنا قلنا اللي بعده حلا أفرو ماركسيست كانتريز قلنا استحدنا حلا أفرو كوميونيست كانتريز كالصومال ده حكمت هاد أفرو ماركسيست كانتريز وحقادة تي سوشياليزم كنوع على ساينتفك سوشياليزم ساينتفك سوشياليزم هو النوع أنت بدن توصل ليسن صالحان إكسبيرمنتيسيو analysis historical analysis maxaan dhahday aqoon iyo science ku salaysan nidaam noocaas weeyaan laakiin mushkiladda ugu weyn waxa la yiraahdaa nidaamkaas oo kale tusaale wuxuu u baahan yahay dad aqoon-yahan oo systemka gacanta ku haya dawladnimada oo iyagu dhaqaalaha hagaya isla markaana iyaga laftooda dad marxist ah oo aragtidii aaminsan tusaale arrintaas runtii ma jirin xilliga marka laga hadlayo hogaam dadkii xukunka ku jira dad kooban baa la yiraahdaa dad marxist bay hayno aqoonta ama mabda'an si fiican u fahansan oo aragtida aaminsan oo fulin kara laakiin marka inta laga yimaado aqoon la'aan badan baa jirtay fahan la'aan nidaamka la qaatay laftiisa oo taasina way yareen ama dad dhinaca galbeedka wastiga wax lagu soo baray Mareykan iyo Ingiriis iyo niman badan wax lagu soo baray baa salaan cabinetka ku jiray markii hore oo iyaga laftooda daan nidaamkan aaminsanin marka sida u fulin karaan ama uga shaqeyn karaan lafteedu ay maxaan dhahday caqabadahay marka scientific socialism kaas oo lagu turjumay hanti wadaaga cilmiga ku dhisan ayaa la qaatay caqabadaha ku yimid waxa kale oo kamid ahaa mar haddii wuxuu yahay wax dhaqaale ay wadanku gacanta dawladdu ay iyadu hagayso dhaqaalaha oo ay gacanta ku haynayso wadayso wuxuu u baahan yahay maxaan dhahday dhaqaaluhu xilligaas oo kale maadaama ay dawladdu iyadu tahay cidda yani injiinka wadaya maxaan dhahday hogaaminaya dadkii wixii wax la doonayaa in wax la wada leeyahay hantidii baa la wadaagaya hanti wadaaga tusaalahan mushkiladda dhacday waxay ahayd nidaamka dhaqaaluhu qaabku yaalo iyo nidaamka hanti wadaagu sidaas ku qaataan way adkay nidaamkan xoolo dhaqato ku salaysnaa qof xoolo dhaqato neefkiisa miyay ku haysto neefkiisa wata sideed tusaalahan wixii aad u maamuli kartaa dawladdu dhaqaale ay u maamuli kartaa arrintaasi caqabad bay ahayd arrinta labaadna illiteracy baahsan baa jirtay
oo dadka inta wax qoraynta wax akhrida xilligaa la qaatay waxa la yidhahdaa 70kii boqolkiiba dhowristan dadku miyi bay ku noolaan magaalooyinka dadku ku noolaa way yaraanba dadka magaalooyinka ku noolaa inta in xataa wax akhri karaysay baa la isweydiin karaa marka xataa aqoon la'aan baahsan baa jirtay oo dadkii laftooda nidaamkan ka midhayn lahaa shacabka ahaa aan lahayn ama aanay maxaan dhahday jirin taas ayadana haddaynu eegno saameynta uu ku yeeshay waddanka nidaamka hanti wadaagu horta dawladdu markay hanti wadaaga qaadatay maxay samaysay saynu saameynta ogaano maxay tallaabooyin qaadatay in aynu yar eegno dhowr tallaabo degdeg ah la qaaday nidaamka hanti wadaagu sidiisaba waxa la dhahaa planned economy ama waa command economy oo waa nidaam ay dawladdu dhaqaalaha gacanta ku hayso iyadoo qorshayso iyadoo hogaamiso marka tallaabadii horse samaysay waxay ahayd qaramayn in sectors badan oo dhaqaalaha ah la qarameeyo laakiin caqabada ugu weyn ee dhacday waxay ahayd saan sheegay xoolihii noolaayo kale si loo qarameeyo waa adkaatay waana sectorkii ugu weynaa dhaqaalaha lama qaramayn sectorka muuskana lama qaramayn laakiin intii kale oo la qaramay tallaabooyinkii koowaad qaatay qaramayn baa ahayd in dawladdu gacanta ku qabato dhaqaale la wareegto tallaabadii labaad waxay ahayd haddaba dhaqaaliyaa wadaya waxa la sameeyey hay-ado wakaalado kuwa horoo jirina dib u habeyn baa lagu sameeyey si ay waxaan dhahdaayeen aragtidan dhaqaale ee la dhaqaatay ay uga turjumaan hay-adaha laba hay-adood baa ugu caansan laba wakaaladood ayaa aada ugu caansan mid waa waxaa la yidhahdaa wakaaladda horumarinta beeraha ADC midna waxaa la yidhahdaa wakaaladda ganacsiga qaranka inji bay dadku aada ugu yaqaaneen berigaa la odhan jiray ENC baa la dhaha lakin inji bay dadku ay u yaqaaneen labada wakaladood baa ugu caansan oo tusaale ahaan midna wax soo saarka la xidhiidhay midna ganacsiga iyo soo dejinta iyo dhoofintii waxay la xidhiidhay ay ka shaqeynaysay mid kasta monopoly loo siiyay ama awood gaara keligood loo siiyey inay labada area ay hogaamiyaan ama ay qabtaan marka mushkiladda ugu dhacday waxay ahayd haddaan soo koobo saameynta haddaan soo koobo saan sheegay wuxuu shaqeynaya buu iska koobnaa waddanka mushkilad kale haysta waxay tahay resource isaga wax ku wada ma haysan waddanku wuxuu ku tirsanaa shisheeye gargaar iyo deynba maxaan dhahday iyo deynba ha taasina mushkilad kale ahayd marka kolba wixii ay helaan mashaariicda horumarineed oo dhan waxay ku salaysnaayeen ama laga fangarayn jiray laga maalgelin jiray deyn iyo deeq taasina caqabad kale ahayd oo dee wixii adigu gacanta kuma haysato adigu ma lihidba markay saa tahay yani cid kale aad ku tiirsan tahay waxay ku keeneen markii dambe khalkhal bay suuqyada ku keeneen siyaasadaha tusaale ahaan waxaana external shockska la dhahay dhaqaalaha dibadda kaga yimaada mushkiladaha dhaqaalaha dibadda kaga yimaada siyaasadaha uu kaga jawaabayay dalku laftooda waxay ahaayeen kuwo aan sax ahayn oo mushkilada badan kasoo noqdeen maxaan dhahday hay-adahan iyo wakaaladahan iyo siyaasadihii nidaamkii la qaatay iyagaa markii dambe caqabad keenay oo culays ku keenay nidaamkii maxaan dhahday dhaqaale guud ahaan economic systemka waddanka iyagaa mushkilad ku keenay marka runtii waxaa la odhan karaaba markii dambena haddii xataa wax la sixi lahaa sideetanada bilowgoodii iyo reform la samayn lahaa ha way adkaatay oo qaabkii loo yani nidaamkii in mar kaliya la bedela adkaatay nidaamkii soo shaqeynaya marka nidaamkaasi bilowga xawaare fiican buu ku dhaqaaqay 5 sano hore wax badan baa la qabtay tallaabooyin kale la qaaday waxa kamid ahaa in maadaama nidhi wuxuu waa planned economy in la sameeyo qorshayaal qaran national development plans in la sameeyo ilaa laba la sameeyay midi ka hore I think inuu ahaa 12 ilaa 13 ka kala damana 14 ilaa 16 oo midba wax xoog saarayay ka hore kale beeraha iyo xas xoog saarayay ka dambana xoog saarayay warshadaha wala kordhiyay wax soo saarka kale wala kordhiyay tusaale ahaan laakiin de mushkiladda waxay ka dhacday saan sheegay waxa soo dhan markii dambe dib u burbureen ha caqabada laftoodana way qabsadeen oo xataa hadii waqti dadka qaar baa aaminsan inaan waqti ku filan helin oo saan sheegay nidaamku isagoo bilow ahba waxa ku dhacay crisis aanu qaadi karin kow abaarta dabdheer oo kale dhaqaalaha waddanka saameyn weyn bay ku keentay ilaa yacni heer u gaadhay waddanku in dunidoo dhan soo gurmato oo aanu awood buu lahayn oo abaarta waddanka maxaan dhahday kaga saaro mushkiladda labaadna waxaa dagaalkii Ethiopia la galay oo isna dhaqaalaha culayskii ugu weynaa ku keenay oo weliba waxyaabaa ka dhashay markii dambe ay kamid ahaayeen qaxoonti aad u tiro badan oo kasoo qaxay waddanka yimid oo culays ku noqday dhaqaalaha waddanka barakacaya ayay wana kamid aad marka culaysaasna way la kulmeen waqtigana uu koobnaa u shaqeynayay laakiin siyaasadaas markii dambe dana mushkilada badan bay keeneen oo iyaguma suuqii iyo nidaamkii dhaqaale dib dhibaato badan u geystay intaan halka dhaafin farqi noocee ah baa u dhaxeeyay dhaqaalahii diinta ahaa iyo kii deeqda ahaa ee soo geliyay Soomaaliya xilligaasi ee jamhuuriyadda
saameyn sidee bay ku keeneen dhaqaalihii guud ee dalka mid walba gaarkiisa horta saan sheegay dalku tusaale ahaan markii xorriyadda qaatay dalku aad u faqiir u ahaa marka mabuu awoodin inuu tusaale ahaan mashaariic horumarineed oo kale maalgeliyo saddexdii sano hore oo kale wadanka wuxuu ku socday baa maxaan dhahdaa xataa waxa la siin jiray kab miisaaniyadeed ayaa la siin jiray sanadii hore marka dowladdu bilowgiiba waxay bilowday in ay mashaariicda horumarineed oo dhan ugu tiirsanaato gargaar shisheeye ama deyn waliba lixdanadii deyntu way yareed la qaatay gargaar ka badnaa oo yani la heli jiray gargaar badan baa la heli jiray heer ay gaadhay tusaale lixdanadii in la dhaha jamhuuriyadda waxay ahayd marka waxaan la dhaha aid per capita yani deynta wadanka soo qaatay calaa qof bulshada wadanka ku nool haddii loo qaybiyo inta ku hagaagaysa wadanka ugu badan buu ahaa basab saxaran africa wadamadan saxaraha ka hooseeya africa saxaraha ka hooseeya marka de populationkana uu yaraa runtii deyn badan buu heli jiray markii dambena deyn badan buu heli jiray si kooban wadanka dhaqaalihiisu yani haddaad baadho literatureka way adag tahay inaad hesho hal mashruuc weyn oo maxaan dhahdaa development ama wax lamid ah oo laga maalgeliyay miisaaniyada ama dhaqaale wadanku leeyahay waabay adag tahay inaad hesho de markaa wadanku wuxuu ku socday waxa mashruuc weynaad maqashay waxa warshadaad maqashay wixii la yeeshay oo dhan ay waaweynaayay xataa waxa muuqda hadaynu soo qaadnay wadooyinka ugu waaweyn tiyaatarka diyaaradda Somali Airline waxaasoo dhan waxay wax gargaar ku yimid ama deyn laga maalgeliyay ay ahayn salaasha weyn waxa kamid ah warshadii sonkorta Marere Juba ee Marere ku taalay ayaa kamid ah waxyaabaha salaasha weyn la soo qaadan karo lacag aad u badan ku baxday 100 milyan ee dawladda Carbeed bixiyeen wadan gebigiisu wuxuu ku socday deyn iyo deeq waliba intan dambe nidaamka askarta waxa aad ugu fududaa shuruudaha deyn soo qaadashada marka waxa xilliga deynta ugu badan wadanku qaatay waxa weeyaan 70-nadii ilaa 80-nadii xilliyadan taliska askartu joogay ayaa wadanka deynta ugu badan la qaatay baarintaas maxay keentay deynta oo kale tusaale ahaan dee wadankii waxa ka dhigtay horta wadan dependent oo cid kale ku tirsan dhaqaalihiina waxa ka dhigtay dhaqaale dependent oo maxaan dhahdaa arrintaas xataa waxay saameynaysaa awooddaada diblomaasiyadeed awooddaada siyaasadeed ee aad fagaareyaasha caalamka ku leedahay mar haddaad tahay qof gebigiisuba wadan ku nool maxaan dhahdaa gacmo hoorsi iyo ku nool maxaan dhahdaa waxa la siiyo dee waxay mushkiladeeda leedahay laba dee waxaad adigu leedahay inaad gaadho maba gaadhi kartid ma haysatid yani dhaqaale adigu saad rabto moodi kartid kolba wixii lagu siiyo ayuunbaad mashiici lagu siiyey lagu maalgelin baad wadi kartaa xataa haddii doonayso horumar gaadho horumarkii baan xataa ku xidhnay oo deeqdii laftirkeedii baa ay galdaloolooyinkaasi leh oo wadankiiba kuma xidhnaba maxaan dhahdaa arrintaas deyntoo kale Soomaalidu yani waxa bay gaadhay jamhuuriyaddu heer stateanka 80-nada dhexdoodiiba inay bixin kari weydo 5-stateankii wixii ka dambeeyba xataa waxa dalbatay deyn cafin ama marka deyn cafintu ama either waa in laga dhaafo ama waa in reschedule wax lagu sameeyo dib lagu dhigo muddada aad bixinayso in dib lagu muddeeyo xilliga aad bixin doonto ama aad soo celin doonto marka deewad waxaan ilaa maanta laga hadlaa deyn cafinta ilaa maanta laga hadlay culeyskeedii ilaa maanta wadanku ka dhaqaaqilaya ama aanu deyn kala soo qaadan karin ama aanu wax kala heli karin oo caqabad dabarka ku ahi waa deyntii bariga la qaatay marka labaduba runtii dhaqaalaha mushkilad weyn bay ku yeesheen laakiin dee xaqiiqadu waxa weyn inay iyagu wadeen dhaqaalaha horta taas xaqiiqa laakiin saameyntoodana waa saan sheegay way kulli positive may badnayn inkastoo de waxa yareenu haysanaba deyn laga sameeyey iyo gargaar laga sameeyey haddana dhaqaalaha fundamentally saameyn negative ayuu ku yeelanayaan waa tahay daawadayaal waxaan kusii shaqeynaa guddiga gabagabadii barnaamijkani waxaan naga xasuusinaa in doorkani amaba xalqadani aanu diiradda ku saarayno dhigana la magac baxay dhaqaalihii jamhuuriyadda Soomaaliyeed ee 1960kii ilaa 1991kii qoraaga buugaasi maxamed ayaa iigu martiya aan ku sii socono ustaad run ahaantii waxaad durtay adigoo aragtay dhaqaale ku eegaya iyo cilmi aqooneedba dhaqaalaha inay u xun tahay deynta iyo deeqdiba maxaa kale mudan ba ay kula tahay markaasi uu dalku dakhli ka soo saari karaa والله horta arrinta ugu muhiimsanay waxa ku xiran wadanka hayntiisa wadanku muxuu resource leh ay ku xiran tahay laakiin hadii yani maanta dunida la eego taariikhda dunida soo martay hadii la eego adag tahay in la helo inta anagu hayna ma jiro wadan la oran karo wuxuu ku horumaray deyn ama deeq gargaar
khaasatan gargaarka way ka mushkilada badan leh aan maxaan dhahday horumar badan aan lagu gaari karin dhaqaaluhu dunida wadan aan deyn lagu lahayn ma jiro wadan aan deyn qaadan ma jiro deeqda gargaar waxa qaata dawladaha daciifka ayaa qaata gargaarkuna waa dhowr nooc oo dad badan ay gargaarkan bini'aadantinimada humanitarianka inta badan ciddii ma jirto xataa marka dhaqaalaha laga hadlayo oo dad meel ku dhimanaya oo ama abaar u dhimanaya ama daadad u dhimanaya ama dhul gariir ama mushkilad kale in wax lala gaaro oo arrin bini'aadantinimadaas laakiin arrinta laga hadlaya waxa weeyaan gargaarka dhaqaale waxaan economic aid ka leedahay ama development aid weeyaan laga hadlaya mushkilada waa taa taasina culayskeeda leedahay imika wadamada Afrika oo kale in badan oo kamid yani wadamada soo korayso dhan waxa qaataa deyn laakiin wadan deyn ka horumar ma jiro deyntu labada waxay samaysaa oo waxaan baa ka faa'iido dadka elite-ka ah ee xukunka talada haya corruption bay samaysaa iyo musuqmaasuq iyo dabaqado aan ba samaysaa deyntu laakiin wadan ma horumariso taas oo mid deyntu mushkiladeeda leedahay horta wadan deyn qaadan ma jiro marka Mareykanka oo kale waa waxaan filayaa wadamada oo deynta ugu badan dunida lagu leeyahay dana waa ka koobaad malna dhowr trilyan baa lagu leeyahay deyntu waa wax iska caadi ah la dhaqaalaha inta badan oo wadan aan deyn lagu lahayn uu yar yahay halkaas ka soo qaadanayso ma ku xiran tahay dawlado badan oo imika salaan deymo waxa jira si gaar ah dhaqaaliyahanadu ay uga hadlaan oo salaan deymaha laga qaato aydan lacagta adduunka oo kale IMF to kale iyo World Bank iyo deymahaas waa deymo samaysan baa la yiraahdaa ayo dhaqaalaha wadamada soo koraya lagu ragaadiyo marka way jiraan dawlado badan oo intay IMF lacagteedii iska bixiyeen aan waxba ka qaadan laakiin haddana de bilateral waxay soo qaadanayaan debt oo waxay ka soo qaadanayaan dawlado ama hay'ado kale oo caalami ama bangiyo kale ay ka soo qaadanayaan inta badan wadan aan deyn lagu lahayn uu yar yahay dunida laakiin mushkilada haysta wadamada soo koraya waxa weeyaan wixii wax bulshada lagu celinay maaha wax dhaqaale lagu kabaya maaha deymaha inta badan waxa la soo qaataa oo ugu muhiimsan dalku inta badan isku filaasho dhaqaale ma gaadho waxa jira mar walba daily tirlaan la'aan ama maxaan ahda dhinaansho deficit kala ayaa jirta marka deficitka lagu buuxiyaa horta loo soo qaataa inta badan laakiin wadamada soo koraya ama wadamada Afrika mushkilada haysta waxa weeyaan ugu weyn waxa weeyaan in ama wixii corruption uu ku salaysan yahay ama dad gaara naasnuujinayo ayaa kamid ah marka runtii dhinaca kale waa maxay de wadanku waa inuu resource-kiisa maal gashado waa inuu isagu resource-kiisa la soo baxo resource-ka dadka kamid ah waa inuu dadkiisa maal gashado maanta dawladaha dunida Hindiya China oo kale dhaqaale oo kaliya waxa ugu badan ee yani ijiinka wada waa population ka badan ay haystaan dawladaha qaar salaan dawladaha khaliijka oo kale resource power waxay haystaan dhaqaale shidaal iyo saliid ayaa talaan caawinaysa kuwaan inta ba haysanoo ama dalxiis ku tirsan ama wax kale ku tirsan ma jira horta wadanku inuu waxiisa la soo baxo inuu isagu oo ka baxo wadan salahan aanu noqon dunida kale dhaqaalaha ahaan aad ugu tirsan oo khaasatan waxyaabo la soo dejiyo mid isagu wax dhoofiyeen oo lacag adag ay soo gasho dakhli salahan ay soo gasho markaasuu bilaabi karaa wadanku inuu cagiisa isku taago oo dhaqaalihiisu uu xoogaysto runtii marka waxaan isleeyahay anigu wadanku waa inuu aqoonta maalgeliyo aqoonta ugu muhiimsan waxyaabaha aad human capitalka in aad loo maalgeliyo ayaa kamid ah waxyaabaha waayo dadka keena horumarka dhaqaalana dawladda ma wada shacabka wada marka shacabka in la diyaariyo wadan kasta oo dhaqaalihiisu aqoontiisu ay tayo leedahay dhaqaalihiisu inuu fiican yahay marka dhaqaalaha kamid ah maalgelinta meelaha wax soo saarka waliba khaasatan in la maalgeliyo dalku ugu yaraan wuxuu cunayo la soo baxo ugu yaraan wax areaska maxaan dhahdaa sectorska productive ka wax laga soo saaro wax laga dhoofinayo in la maalgeliyo xoog la saaro salahan dawladaha soo koraya marka dawladahan Asia barigeeda kala bariyay 30 sano dambe aad ka koray globalization ka faa'iideystay siyaasadda ay qaateen dhamaantood waa export oriented policies oo wadanku hadafkiisu waa inuu dhoofiyo oo lacag adag soo gasho oo kala tsala laga suuq noqdo de wax loo soo dhoofiyo oo isagu noqdo de wax noqonaysa lacag adag inuu ka baxdo waana mushkiladda imka Soomaalida inaga aad ka noo haysata yani lacag adag oo naga baxdo in wax walba lacag adag ku saabsan marka taas ayaduna mushkilad waxa isleeyahay aqoonta la dhiso areaska productive kana xoog la saaro meelaha wadanku comparative advantage ku leeyahay waxyaabo wax soo saarkooda talaan ku fiican yahay dalka kale kaga fiican yahay in xoog la saaro si kuwa dunida looga iibiyo dadna wixii kale in la soo saari karin dunida looga soo iibsado ayaa iyaguna kamid ah kullu waxyaabo badan baa la sameyn karaa laakiin waxaan wadanku inuu 100% dhaqaalihiisu ama inta ugu badan ay ku tirsanaataa ma fiicna
ama gargaar ama maxaan dadeen waa tahay 11 sano ay buugani ka hadlayaa oo ah waqtigii ay isku jireen midowga ay haayeen Somaliland iyo Soomaaliya 11 sano kale ka dambeeyay oo la kala taagan yahay bal Somaliland haddii isbarbar dhigto 11 ka hore buug ka hadlayo iyo 11 kan dambe iyo ma dhaqaalahaan as leedahay way wanaagsantahay haddii aad Somaliland si gaar ah uga soo saartay jamhuuriyadda Somaliland maanta 100% ka fiican tahay isku madhow waayo waxaan ka hadlayo dalku inta badan Muqdisho ka noolaa wixii deyn la soo qaatana badankeyga waxa la geliyay koonfur ay la geliyay ama intii Italian Somaliland loo jiray ay la geliyay marka Somaliland tusaale ahaan wax walba dadku Muqdisho tagi jireen wax walba Muqdisho loo doonan jiray Somaliland wax dhaqaale badan oo ka socday ma jirin mashaariic aan badnayn ayaa la sheegaa inay soo gaadheen oo saalaan warshada sawirka Berbera oo kale mashruuc marbanka wajaalo wax soo saarkii xaso waxaan dhacday tijaabo ahaa oo laga sameeyay jidkan dheer oo Shiinuhu maalgeliyay oo isku xidha koonfurta waqooyiga waxyaabahaas ka mid ah laakiin marka laga yimaado iyadoo waliba Somaliland dekada Berbera kale ay ahayd meelaha dhaqaalaha ugu badan soo saarta waddanka xoolo loo dhoofin jiray xoolaha ugu badan dekada Berbera laga dhoofin jiray haddana waddanka yani intan Somaliland waxa ku soo noqda aad buu yaraa aqoontu inta way ka liidatay waxayntu inta way ka liidatay waddanku markii dambana dee wuxuu iska galayba 70 daqiiqadiis wixii ka dambeeyay 80diiba waddanku wuxuu galay staag heer wuxuu gaadhay xataa dadkii aqoonta lahaa oo dhan waddanka iska hajiraan oo wadamada khaliijka iyo shaqo tagaan jadal loo shaqo tagayna waxay ahayd dee wax mushahar oo naf lagu noolaan karo ma jirin oo arrimo siyaasadeed oo jiran dadka qaar cadaadis ay tabanayeen laakiin wax lagu noolaan karaba muu ahayn waxa ay la bixinaya tusaale ahaan dadka la siinay marka waxaan isleeyahay anigu laba waqti oo la soo bari karaba marka dawladnimada iyo waxa laga yimaado xagga dhaqaalaha laba waqti oo la soo bari kara ma ahaba laakiin marka dhinaca kale laga eegana waxaad moodaa waxoogaa in dadkeenu sagta xoolaha nool oo kale ay weli xilliga xoog ahaayeen oo xoolaha si fiican loo dhaqan jiray oo dadku ay wax iibgeyn jireen xoolo dhoofin jireen oo dhoofkuna furnaayo sanado dhoofku xidhnaa way jireen oo buugga ku qoran yihiin laakiin xagga kale xoolaha nool iyo xaasi tusaale ahaan way ka fiicnaan bal oo dhan kara xilliga maanta xoolo iska dhamaadeen urbanization nagu batay dadku magaalooyinka soo wada galeen dhaqaalihiina dhinaca kale loogama wareegin weli xoolihii baa lagu tirsan yahay marka laakiin haddana si guud haddii la soo barigo labada sawir waxaan u malaynayaa aad bay u kala duwan yihiin oo maanta dadku aad uga nolol fiican yihiin xilligaa hore ugu dambeyntii ustaad adigoo soo koobaya ma is leedahay fariintii buuggani amaba dhiganahan igu siday bulshada waxay u gaadhay sidii aad ugu tala gashay ahayd waa mahadsantahay horta niyo sidaan sheegay dee dadka waxbaa ka dhaadhacsanaayo xog mawduucan weli dadka wax si af Soomaali ku qoran oo xog oo daily tiran oo maxaan dhahdaay loogu soo gudbiyay ma jirto marka qofku wax iska aaminsanaa dadku waxay u badnaan dadka aaminsanaa in dawlad awood leh oo inaga burburtay barisamada dhaqaale la soo maray nolol fiican la soo maray ayaa jirtay laakiin xaqiiqadu waxay tahay markaan eego falcelinta ka soo noqotay buugga ilaa hadda xagga Somaliland iyo xagga Soomaaliya runtii waxa weeyaan dadka marka hore strange ba ku noqotay yani arrin la yaab leh ku noqotay xogta buugga ku jirta oo dadka badankooda u arkaan xog negative tahay oo qaab maxaan dhahday taban ay uga hadlayso dhaqaalihii waddanka jiray laakiin waa wax aan isleeyahay dadka badankooda way qaateen oo way fahmeen xaqiiqada jirtay in aanay ahayn waxaan arrimo dadku marka hore yani ay ka warhayeen tusaale ahaan marka intii ay gaadhay marka intii ay gaadhay waxaan isleeyahay xogta buugga ku jirta aad ba u saameysay markaan iga falcelinaa buugga ka soo noqday dadka badankooduna way dareemeen isbedelka muhiim yani waxaa jiray xaqiiqada in la taabto oo la arko maxaan dhahdaa cadeymo evidences la soo bandhigo dadka badankooda way gaadhay marka dad aad iga aragti duwanna ma jiraan oo diidan waxaan sheegayaa tusaale ahaan inay bari dhaweyd tusaale ahaan fogeyn bila ka hor buugga waxaan kusoo bandhigay UK bandhiga waxaa kasoo qayb galay dad badan oo xataa dawladda ka tirsanaan jiray oo xog haya oo involved ah falcelintu ma ahayn mid yani aad uga duwan kaan anigu bahayo oo yani way qireen in wixii jiray oo sidan aha tusaale ahaan way dadkii waaweynaana akhriye buugana way qireen badankooda inuu nidaamku in dhaqaalo sidan ahaa marka waxaan isleeyahay
kow horta fariintii ahayd uu buugu xambaarsanaa dadka way gaadhay laba waxaan isleeyahay ardayda khaasatan dhaqaalaha baratay iyo dadkaan rabay inuu tixraac u noqdana falcelin fiican baa kasoo noqotay iyagana wuu anfacay waana wax de waana buug muddo dheer shaqaynayo oo maadaama taariikh lasoo dhaafay ka sheekaynayo saan sheegana reference academiga yahay muddo dheer sii jiri doonaa markaa kolley ardayda dhaqaalaha baratana waan ku dhiirigelin lahaa in qof kasta buuggaas uu gacantiisa galo oo referenceka uu helo oo uu fahmo wixii jiray oo uu ogaado dhaqaaluhu muxuu siduu dhadhan u sameynaya markuu waaqaca ka hadlayo markuu afkaaga ku qoran yahay iyo maxaan dhahday arrimo noocaas aad ba maasan waa tahay daawadayaal intaas waxaa noogu dhan xalqadeenani ama kulankeenani ka midka barnaamijka qalin la kulanka qoraaga barnaamijkani waxaanu diiradda ku saaranay isla markaasina aanu gorfeynaynay dhiganaha la magac baxay dhaqaalihii jamhuuriyadda Soomaaliyeed ee 1960 ilaa 1990 barnaamijka waxa igu marti ahaa qoraaga alifay buugani sidoo kale ah bara jaamacadeed maxamed oo loo yaqaan Khadar waxa idin daadihinay anigoo Khadir Qowdhame waa duubistii Sayid Buraale iyo waliba farsamada Cabdirasaaq Ismaan intaan ku kulmi doono barnaamijyada dambe idin ahaantii waxaan ku dhaafaynaa amaan Allah